شمائل الرسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود qosolku waa dabci ka mid ah dhaqanka aadanaha mana ka hor imaanayo alla ka cabsiga qofka allahna wuxuu aadanaha ku abuuray inay marna qoslaan marna ooyaan waa sidaas xaalka adduunyada oo dhami qosolku waa wejiga qofka oo furfurma heer farxad awgeed ay soo muuqanayaan ilkaha qofka warbixintan kooban waxaa allah idinkii kusoo gudbin doonaa habdhaqankii rasuulka sallallahu calayhi wasallam marka la joogo dhoolcadaynta iyo qosolka si aan dhaqankiisa iyo hadyigiisa uga dayano جاءت بوصف الصحب على لسان الحب في مشيه تقلع بهمة وأسرع rasuulka sallallahu calayhi wasallam ma ahayn qof irxiran oo wejigiisa laga dido balse wuxuu ahaa qof ay ka qosolsiiso waxay dadku ku qoslaan sidaasi darteed way farxad gelin jirtay suubanaha kaftanka aan dembiga xambaarsanayn ma dhacdo sida riwaayaadku werinayaan sheeko iyo waruu rasuulka sallallahu calayhi wasallam sheegay ilaa wuxuu raacin jiray dhoolcadeen aan iska doondoon ahayn badi qosolka rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa dhoolcadayn wayse dhici jirtay in mararka qaar uu qoslo ilaa dadkii la joogay arkaan gusdambeedkiisa sallallahu calayhi wasallam لنفسه لا يغضب فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق saxaabiga cabdullaahi ibnulxaaris radiallahu canhu wuxuu leeyahay ma arkin qofka dhoolcadayn badan rasuulka sallallahu calayhi wasallam jaabir binu samra radiallahu canhu waxaa la weydiiyey ma la fadhiisan jirtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi haa wuxuu ahaa rasuulka qof aamus badan qosolkiisu yaryahay شمائل الرسول بالخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب dhaqanka dhoolcadaynta ayaa ah sifo laasimta suubanaha sallallahu calayhi wasallam jariir bin cabdillaahi albajali radiallahu canhu wuxuu leeyahay ima uusan arkin rasuulka sallallahu calayhi wasallam tan iyo markii aan islaamay ilaa uu dhool cadayn jiray جرير بن عبد الله رضي الله عنه ركزوا على المسألة هذه البجلي من قبيلة بجيلة كان رجلا وسيما يقول وقد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو ب40 يوما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا تبسم عليه الصلاة والسلام إلا تبسم لأنه كان شديد التبسم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله مسموع ووجهه مليح كلامه فصيح dareenka farxadeed ee suubanaha sallallahu calayhi wasallam ayaa ahaa mid laga garto wejiga rasuulka hooyadeena ciisha radiallahu canha ayaa tilmaamaysa inay wejiga rasuulka ka gelin jirtay farxadda kacab ibnu maalik radiallahu canhu wuxuu leeyahay wuxuu ahaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam haddii la farxad geliyo mid wejigiisa dhalaala في صوته وقدوة في سمته البشر طبع فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية haddii aanu ka hadalno ooyinta rasuulka sallallahu calayhi wasallam ma ahayn mid la maqlo inta badan waxay ahaan jirtay ooyintiisa ilanta oo ka qabata labadiisa indhood ee sharafta badan cabdullaahi bin mascuud radiallahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mid ah rasuulku ku dul akhriyay aayado ka mid a qur-aanka kariimka markii uu soo gaaray aayadda ah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam yidhi halkan ku jooji cabdullaahi bin mascuud radiallahu canhu wuxuu yidhi waxaan eegay rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaana arkay isagoo ilmaynaya أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل
أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا، فيه ثواب وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق، ساد جميع الخلق. أعلى الإله قدره، في الشرح زكى ذكره. تأسيا وطاعة يا راجي الشفاعة، مر مورد الكوثر من مدحه فليكثر. صل عليه.